ila sawir saaxiib haddii aad dib ugu laaban karto caruurnimadaada oo soo saxi karta khaladaadka mar hore samaysay maxaad soo sixilay taasina waa dhacdo kamid ah dhacdada ku dhacay jilaaga animeegeena Satoru Junama kaasi oo leh awood la yaab leh wuxuu dareemi karaa marka ay wax xun dhici rabaan inkastoo uu leeyahay awoodan haddaba Satoran ka hadlayna ma aha Cabdifataax dheeray animeega ugu caansanaa waa wiil yar miskiin oo faqiir nolol faqiirana ku nool laakiin leh awood khatar oo cid kasta aysan haysan haddaba wiilka arba qasiisa falanqeynaya asxaabi sabankeena ugu tuura muuqaalkana like saaro 1k gaarsiiya iminka inoo bilaaba animeega maanta هو Satoru Junama wiilka Junama qisada noogu soo bilaabay waxa uu leeyahay riyadaas oo aynu noqdo farshaxamiistaha maangada wiilkan Junama iyo Satoru loo magacaabo wuxuu ka shaqeeyaa meel biisa kaasoo u geeyay dadka dalabaadka ka soo dalbadeen maalmaha kamid ah soo gaarsiinaya dalab ayaa isagii saaxiibadiisa shaqada ee Aris loo magacaabo waxay arkayaan wax la yaab leh taasoo balbaalis agagaarka duuleysa isla markiiba wiilkiisu awoodiisa adeegsanay waxa uu dareemayaa inay wax xun dhici rabaan markaas ayuu feejignaadaa marka horeeraha fiiriyo wuxuu arkaa baabuur weyn ama truck kaasoo hor dhankiisa ku soo wajahan isagoo aan waqti lumin ay Satoru wuxuu u jeediyaa baaskiilkiisa wuxuuna bilaabay inuu daba galo wuxuu ogaaday in darawalkii truck uu miyir beelay isagoo wali steering-ka haya truck-gina wuxuu ku soo socdaa xawaare isagoo soo jeeda ilmaha Junama Satoru wuxuu gaaraa waqtigii ugu dambeeyay wuxuuna qabtaa steering-ka truck-ga wuuna leexiyaa sidaasna wuxuu ku badbaadiyay ilmaha laakiin intuu intaas sameeyay wuxuu ku dhacaa baabuur kale wuuna miyir beelaa markuu miyir beelo xasuusi canuumadiisa ayaa maskaxiisa dib ku soo laalaabtay daqiiqadii hurday inuu isku maleeyaa ama uu laakiin markii dambe wuxuu ka soo toosay isbitaal kaasay garab joogtay gabadh loo yaqaan Ari waxayna weydiisay hadduu rabo inay qof u sheegto ama hadduu rabo inuu qof laakiin Satoru wuxuu u diidaa wuxuuna ku yiraahdaa ma rabo qof inuu meeshan igu yimaado cidna ma lihi saaxiibna ma lihi walaalna ma lihi kadib Ari wuxuu la sheekaysataa si saaxiib talamana waxaan u sheegtay in darawalkii truck uu waday inuu dhintay wuxuuna u dhintay wadna istaag in maamulahoodu inuu sheegay in baaskiilkiisa wiilkan uu caymis ku siin doono hadhow marka uu wiilkan soo caafimaado wuxuu dib ugu noqon karaa shaqada markuu soo caafimaado Satoru isagoo aad u faraxsan ayuu wuxuu weydiiyay sababta ay uga shaqeynayso dukaanka biisaha maadaama aysan u muuqan qof lacag rabto inay u shaqeyso laakiin Ari wuxuu ku jawaabtaa inay leedahay iyadu riyo markaas wiilku wuxuu weydiiyay waxay tariyadeedu laakiin gabadh wax badan intay dhoolacdiisay iskaga tagtaa waxaan ogaanaynaa in wiilkan awood u leeyahay isagu si maamuli karin oo 5 daqiiqo ka hor dib loo celiyaa haddii wuxuu riixi rabaan si uu soo soxo waxaasi ama khatartaas uga badbaado laakiin wiilka marka qaar ku guuleystaa marka qaar ku guuldareystaa oo marka qaar waxa dhacay noloshiisa ay gasho khatar oo soo ku dhiman gaaray khatarahaas ama dhibaatooyinkaas uu rabo inuu saxo oo dadka uu ka badbaadiyo markuu wiilkii Satoru ama wiilkii Junama ku soo laabtay gurigiisii ayaa waxa uu la kulmay hooyadiisa loo yaqaan Sajuko inkastoo ay jirto 50 sano haddana waxa uu egtay gabadh jirta 20 jir waxayna u sheegtay in isbitaalka uu timid balse iska laabatay maadaama uu hurday kadibna si caadi ah ay ugu sheegtay in dhowr maalmood ay joogi doonto markaas wiilkii hadalka hooyadii ka soo yeeray isagoo aan fahansanayn ayuu wuxuu ku yiraahdaa maxad ka wadaa markaas waxay ku tiraahdaa maadaama aad shil gashay waxa ay fiican in mar walba wiilkayga isha kuugu hayo ka daryeelo isla habeenka sigoo TV-ga daawanaya Sachiga waxay soo hadal qaadaa xasuus cabsi leh oo ka timid markii Satoru wiilkeeda Satoru loo magacaabay uu ahaa fasalka shanaad waxayna weydiisay inuu xasuusto dhacdadaas waqtigaas ku dhacday markaas wuxuu ku yiraahdaa ma xasuusto kadibna saanta waxay ku tiraahdaa way haddii aadan xasuusan waa caadi wax khatar ah ma dhici karaan markaas habeenkii markuu wiilkii sariirtii yimaado ayaa wuxuu soo xasuustaa xasuusta hooyadii u sheegaysay in laba kamid ah ardayda la dhiganaysay fasalka isla waqtigaas la waayay wuxuu xasuustaa inuu ahaa wiil aad u xishood badan oo aamusan wax kale oo xasuustaa in nin deegaanka degan oo la oran jiray Yuki kaasoo si naxariis leh mar walba wiilka ula hadli jiray si degdeg ah waxay noqdeen ninkaas saaxiib laakiin 6 bilood kadib markii ardaydii la waayay Yuki waxa qabtay booliska waxaana lagu eedeeyay afduub iyo dil mid kamid ah caruurtaas maalintii xigtay Satoru hooyadiis markay ka soo laaban dukaamaysiga Satoru wuxuu markaa la dareemay dareenkii abka lahaa wuxuuna si lama filaan isku arkay isagoo 5 daqiiqo kadib ku laabto waqtiga markaasna hooyadu wuxuu ku codsadaa in iyaduna hareeraha eegto waxayna aragtaa nin shaki leh ama wajigiisa ka muuqdo shaki oo si degdeg ah gaarigiisa u fuulaya kadibna kaxaynaya daanta Sachiga waxay ka qaataa sawir kadibna waxay bilaabay intuu soo bixin waxay kadib meesha waxa timaada Ari waxayna aad la yaabtaa sida hooyada wiilka Satoru ay u muuqato mid aad ugu da'yar saddexdooduna waxay bilaabeen inay sheekaystaan Sachigana si caadi ah wiil gabadhii ugu casuumta gurigeeda iyadoon ogeyn gabadhan waxay tahay dhankan ninkan wuxuu bilaabay inuu meel fog ka daawado intay cashaynayeen Sachiga waxay si kaftan leh weydiisay inta ay leegtahay muddada ay Satoru iyo gabadhan ay shaqaynayeen aas degdeg ah u cadeysay in kaliya saaxiibihii markay gaarto waqti ay gabadhu bixi lahayd Sachiga waxay weydiisay in habeenkaas gurigan la joogto laakiin wiilkii Satoru wuxuu ku yiraahdaa ma hooyna lama joogayso gabadhna Ari waa gabadh dugsi sare oo waa gabadh ardayada casharaan iyo assignment waxba sugaya oo diyaarsanaysa
markii dambe wiilkii Satoru wuxuu bilaabay inuu akhriyo jaraa'idka wararka wuxuuna ku arkaa magaca Kiliyo Hinoki gabadh aamus badan oo fasalka ahayd oo la afduubay lana dilay markuu arkay magaceedii qalbigiisa waxa ku soo dhacaya dareen culus oo ah murugiyo dambi dhanka kale Sachiga waxay ka fikiraysaa ninkii ay horey u arkeen maanta waxayna dareemaysaa inay horey u aragtay qofkan oo meel ku aragtay markay eegtay jaraa'idka duuga ee meesha yaala shakigeedu waa wax xaqiiqa waxayna banaanka u soo baxdaa si telefoon u wacdo iyadoo walwalsan hadda waxay ku qanacsantahay ama hadda xaqiiqsatay in afduubaha dhabta dadka leynaya uusan ahayn Yuki ama saaxiibka wiilkeeda balse uu yahay qof kale oo raba inuu caruur kale badan sii dilo silama filaan ninkii dilaaga ay meesha imaada Sachiga markii hore waxay mareysay inuu yahay wiilkii Satoru laakiin ka hor inta aysan waxba sameyn ninkii wuxuu bilaabay inuu mindi ku dhufto markii uu islaanta dhulka ku dhacdo waxay isku dayday in wiilkii Satoru u wacdo laakiin ninkii dilaaga ahaa ay wuxuu ka qaatay telefoonkeeda islaanta intii dhulka taalay ayaa waxay tiraahday waxaan jeclaan lahaa in wiilkaygu ogaan lahaa in Yuki uu lahayn dambiilaha dhabta ah kadibna way dhimataa dhanka wiilkii Satoru wuxuu soo jeedaa gurigiisa markuu soo dhawaado guriga wuxuu arkaa dhiig dabaq ka soo qulqulay isagoo naxsanay gudaha u soo galaa wuxuuna arkaa hooyadiis oo dhimatay wuxuuna istaagay isagoo aan rumaysan karin wax uu arkayo markuu soo dhawaaday gacmihiisa waxa ku daatay dhiig isla waqtigaasna qof kamid ah dariska ayaa meesha imaada dariskuna markay arkaan way argagaxaan wayna qeyliyaan waxay kadib meesha wax imaada booliskii markay arkaan muuqaalkaas waxayna malayn wiilka Satoru gacan ku dhig leeyahay waxayna isku dayay inay qabtaan laakiin isagoo wiilkii jahwareersan cabsi dareemaya ayaa wiilku wuxuu bilaabay naftiisa la cararo mana fahmin waxa dhacaya silan filaan wax kastoo ku haraaraysan ayaa isbedela wuxuu isku arkaa isagoo oo jooga meel uusan muddo sanada u arkin markuu neefta soo ceshanayo ilmo yar ayaa agtiisa ka ordaya halkaasna wuxuu dhabahaantiga fahmay inuu dib ugu laabtay 1988kii oo ah xalligii caruurnimadiisa Satoru wuxuu isku arkaa fasalkii hore uu joogi jiray markuu yara u dhigan jiray waxay kadib macalinkiisa fasalka ayaa soo galay oo uu tilmaamay kursigiisa caadiga uu rabay inuu fadhiisto laakiin Satoru isagoo wareersan waqtiga isbedelay awgiis wuxuu hilmaamay halka uu fadhiisan jiray wuxuuna fadhiistay kursi maran oo qof kale leeyahay balse ardayga xasuusiyo wuxuu ku yiraahdaa kursigaas waxa iska lahaa qof kale ee iskaga kac kadib wiilkiisa wax xishoonaya ay wuxuu ugu dambe ku soo noqday kursigiisa saxda ahaa ee macalinku tilmaamay isagoo wali aan garanayn kursiga saxda yani uu fariisan doono laakiin kursiga uu fariista hadda waa kursigii saxda ahaa macalinku tilmaamayay wiilkan uu jahwareersan yahay mana garanay wax dhab ahaantii ka dhacaya agagaarkiisa markii uu casharkii dhamaaday wuxuu xirtay boorsidiisa oo isku diyaariyay inuu baxo laakiin saaxiibka ayaa weydiiyay halka uu aadayo Satoru waxa uu sheegay inuu madax xanuun qabo oo uu socdo dhanka kalkaalisada ardaygiina waxa uu leeyahay sababta boorsidiisa ula baxayo balse wax kale ma uusan weydiin wuxuuna ballan qaaday in macalinku u sheegi doono inuu isagu xanuunsan yahay markuu Satoru dugsiga ka soo baxay wuxuu arkay Kiliyo Hinoki oo agtiisa maraysa markii dambe wiilku wuxuu imaaday gurigii wuxuuna helay gurigiisa maran oo cidba aysan joogin wuxuuna xasuustay in hooyadiisa ay weli ku maqantay shaqada wuxuuna adeegsadaa furaha kadib wuxuu bilaabay gudaha u soo galo markuu qolka galay wuxuu arkay shay hore oo carruurmadiisa ka mid ahaa wuxuuna dareemay xasuus iyo shucuur xoogan oo ka kacaysa qalbigiisa una jirrocooda wuxuuna dareemay qashcariira yani shaygaas wuxuu ahaa shay uu yaraantiisa ku ciyaarin jiray mimkan dib ugu soo laabtay waqtigii markii hooyadiisa shaqada ka soo noqotay Satoru wuxuu dareemay farxad weyn isagoo arkay inay weli nooshahay waxay weydiisay haddii wax khaldan yihiin laakiin wuxuu bilaabay inuu madaxa u luxo isagoo u sheegay wax walba inay hagaagsan yihiin hooyadiina waxay tagtaa jikada si ay casho ugu soo diyaariso labadoodana waxay bilaabeen inay wada cunteeyaan isagoo hortiisa fadhiya Satoru wuxuu naftiisa u ballan qaadaa in markan uusan khasaari doonin fursadii labaad ee caruurnimadiisa maalintii xigtay markuu fasalka soo galay wuxuu isweydiiyey sababta awoodiisa ugu celisay waqti aad u fog ma jirtaa waxaa raba inaan ka hortago ama aan badbaadiyo intuu cashirka socday wuxuu arkay nabar madow oo gabadha kiyeeg bowdada ku yaala isagoo walwalsan ayuu maalintii dhan wuxuu bilaabay isha ku haayo bowdadeeda ama namarkaas cid waxay tahay markii dambe isagoo la sheekaysanay saaxiibadiisa dugsiga ayaa mid kamid loo yaqaano Kenya Kobashi ayaa wuxuu weydiiyaa hadduu Satoru jecel yahay gabadha Kiyo maadaama uu arkay isagoo maanta dhan isha ku haaya gabadhan kadibna wuxuu ku yiraahdaa mayaanu gabadha ma jeceli waxaan la yaabanahay sababta nabarku ugu yaalo iyo cidda ku dhufatay si kastaba ahaatee saaxiibadiisoo la kaftamaya waxay ku yiraahdeen ka caawin doonaa inaad gabadhaas u dhawaato Kiyo Satoru wuxuu soo dhawaadaa gabadhii si uu la hadlo gabadhan wax bilowna iska fogayso wuxuuna si xishood loo weydiiyaa ma rabto inaan saaxiibo noqono Kiyo isagoo si taxaddar loogu jawaabaysa ayaa waxay ku tiraahdaa maxaa rabtaa inaan u noqono saaxiibo Satoru ma uusan helin jawaab cad wuxuuna bilaabay inuu xishoodo Kiyona waxay markaas u sheegtay in labadooduba ay iska dhigayaan waxaysan dhab ahayn hadalkaasna Satoru wuxuu ka yaabiyey wuxuuna bilaabay inuu walwalgeliyo oo yiraahdo tolo ma ogaato waxaan ahay anigu iyo ciddaan ahay iyo inaan kusoo laabtay maadigii ama yacni baastigii inaan kusoo laabtay kadibna Kiyo waxay u sheegtay in maalintii hore isaga oo la socda hooyadiis ay aragtay oo guriga wada socdaan labadoodu
Anime-ga maanta waxaa soo khulaasay labadii xalaqo ugu horeysay. Xalqadaha kalena si dhaqso ah usoo dhigi doonaa asxaabay. Fadlan muuqaalka like saara. 7keena 50 qof oo kaliya naga dhiman arkayo. Hadhow laga yaabaa inay ka yaraato. Mac salaama waa shuufa konfiyey xalqa jaay.